بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa ilaahay baa mahad leh ilaahay weyn ee waaxidka baa mahad iska leh mahadda labaad iyo hambaliyada labaadna waxaan u dirayaa shacabka Soomaaliland doorashadii isku sidkanayd ee nabadgelyada ahayd ee sida quruxda badan u dhacday taasaan ku hambaliyeenayaa ilaahay baa ina soo gaarsiiyay oo nabadgelyo inoogu dhameeyay inta ka bacdi waxa noo baxaysa sanqala yar yar iyo xamxam baa noo baxaysa madaxda Hargeysa war baan ku naqaan waxaan ku naqaanaa qabiilaysi iyo inama yar yar oo ay adeer u yihiin gacanta soo qabtaan oo masabada qaranka la doonaan iyo kaga faa'iideysanaya xusbiyaha ahaato gudoomiyayaal xusbiyaha ahaadeen madaxweynaha ahaado iyo qolleteena ku yeeshaan ognaadaan gobolada bariga waxaan uga digaynaa oo digniinta u diraynaa hambaliyada ka bacdi waxaan ka digaynaa inay sameeyaan dhaqankii madaxda reer Hargeysa lagu yiqiin inay sameeyaan ee ahayd inay shirgudoonada inama adeer yihiin gacanta u soo qabtaan masabada kale iyo maayarada gacanta u soo qabtaan wixii Allah wixii la noqonayo ilaa ana u baahan intaasaan ka digaynaa shirgudoonka in soo la siiyo gudoomiyaha baarlamaanka in la siiyo soo waan ku taageersanahay waan soo dhaweynaynaa in shirgudoonka qaybta kale ay gudoomiyayaashu qaybsadaan oo xaafadahooda ka dhigaan taa ayaan ka digaynaa waxaan uga digaynaa war madaxweynaha iyo ku-xigeenkii baa laba guri isu muuqda ahaa hore oo markii horeba isu muuqday Boorama iyo Hargeysa ahaa labada gudoomiye ee xusbiga reer Hargeysa ma yeelayno hal qof hadii ay shirgudoonka ku darsadaan hal qof haday ku darsan yeelmeen Soomaaliland ku dhisnaan mayso aqlabiyadan badan waxay ku helaan imika mucaaradku waxay ku helaan oo dadka kaga helaan cadaalad xumadii kulmiye kaga timi dadku ee ahayd in cid gaar ah loo badiyo xilalka in cid gaar ah wax la siiyo in mashaariic cid gaar ah lagu naasnuujiyo in siyaabaha dadban loo wado hawsha ayay ku helaan waxaan leenahay iska xumaynina dadku imika idinku la shaqeynaya idinku idin taageersan yahay tii madaxweynuhu way dambaysaa ismalihi gelin hore la isla gaaraya hadii maanta aad tan cadaalad kaga shaqeysaan ku qaybsan intaasaan iyaga ku dhaafaya xildhibaanada soo baxay barxad batun baan hambaliyeenayaa ninkaas waa nin qaranka u baahnaa waa dad dhan oo demeels kaga xidhnaa wax u soo kordhay weeyaan qarankana wuu soo kordhay aad iyo aad ba u mahadsantihiin inta ugu culus ee aanu sheegayno waa inta aanu labada xusbi mucaarad ee shiray aanu u gudbinayno ee war waynu sognahay ka daaya wixii ku darana meesha iyo wixii gacanta soo qaban jirteen oran jirteen inaan kana xaafadayda iyo inaan kana xaafadayda maayaradana cadaalad u sameeya oo gobolada uga sameeya ta kale shirgudoonkana mid gobolada bari iskala dhamaantood haday tahay chairmanka haday tahay inta ku xigta intaba gobolada bari iskale yeena arkay adeerbaan oo gacanta soo qabashada yeena arkay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة يجن شرائط حدارها هي اسمها هايسكا أي سميين لبضع حسب قرن حسب قوطني لحسب قوعد وحن هكذا رواينا باقو ستشوديو لبضع قدومية انجنير فيصل يجتر محمد عبد الله عظم وحن لها قرك السماية لان وعركتان maanta inuu aqlabiyadii baarlamaanka iyo deegaanka doorashadii hadda dhacday inuu labada xisbi mucaarad siiyay leeskama kiin jeclaan oo dadka muxubba idima kiin qaadin oo idinka shakhsiyan leeskama kiin jeclaan wax lagu badbaadinayo qaranka Soomaaliland kulmiye muqaddid ayaa aqlabiyada waxaan leeyahay doorashadii maanta iyo fi qaranka waa maqtay waa inuu noqdaa mid ka tarjumaya rabitaanka shacabka Soomaaliland doortay ee aqlabiyada baarlamaanka iyo deegaanka idin siiyay waa inuu noqdaa gees saameeyo oo qanciya oo
سمعسين صوت تاعي دور بهذا الله صوب حي كواسان نربنا إن نوكل في شركة شرايين أنا قبلنا هذا لا يسمحيهن وحلليه لبعض حسب قرن وايس كورير فالرمال اللي يقولون حسابتي قرنك سوماليا كدحيسي باقلبيد اللي كسي مثلا شركدون كقلا وكيلada waanu taageersanahay in bari la siiyo waanu taageersanahay in la siiyo waliba caanood gudoomiyaha golaha wakiilada aadna waanu idinku habalyeynayna waanu idinku taageerinaa labada gudoomiye ku xigeen nuxnuux baa soo baxaysa in waliba nin reerkiisa gacanta hayo oo uu doonayo labada gudoomiye ku xigeen gudoomiye ku xigeenka koowaad iyo labaadba ina ka dhigtaan garxajis calaamad bay idinku noqonaysaa wax xisaabtayna aqlabiyadda heshay ay mahadin doonaan maaha waxaanu leenahay wax qaranka Soomaaliland ka iibsama labada gudoomiye ku xigeen waxa qaranka Soomaaliland ka iibsama waa inay noqdaan waa inaan reerihiina noqon waayo de xisaabta qaranka tihiin aqlabiyadaas leedku doortay baa haysataan reernimo leedkuma dooran ka gees reer Soomaaliland shacabkeedu waxay idinku doorteen fikirkiina iyo xisbiyada wixii sida u iibisay dadka aad uga iibisay waxaan leeyahay waxa kale aan u maqlaynaa saddex magaalo maayiradeeda in mucaaras ku qaato inay soo baxayso Hargeysa Sanaag oo ah degmada Ceerigaabo Togdheer oo ah Burco waxyaalaha soo baxay ee dadku u dhagtaagay u dhagtaagayo aanu la yaabanahay ilaa shalay ilaa xalay ayay ka mid yihiin waxa macnaha soo baxaysa in magaalada Hargeysa loo dhiibo nin garxajisa Ceerigaabo loo dhiibo nin garxajisa maayiradeeda Burco loo dhiibo nin garxajisa mid shacabkii idin doortay iyo kuwii idin taageeray iyo kuwii aqlabiyadaas idinku doortay maanta haysataan baarlamaanka ay yeelayaan maaha waxaan aad u hambalyeeynaa musharaxiintii aan ku tartamaynay golayaasha deegaanka ee degmada Ceelfeen anagoo ahaa musharaxiintii dhacday ahaana xisbiga UCID waxaan ku qanacsanahay doorashadii degmada Ceelfeen sida u dhacday intii ku soo baxday waxaan leeyahay hambalyo way wada guuleysanay intiina soo baxday qulimo guuleysan dhammaan Ceelfeen baa guuleysatay Ceelfeen waxay u baahan tahay midnimo hadii nasiibku idin siiyay maanta intiina soo baxday idin siiyay Ceelfeen isaga warramayno halka ay taagan tahay horumarka ka taagan tahay alxamdulillah nabadgelyada waa fiican tahay inaad maanta dhaqaatisaan isku dubnaantaan durba waxbaa soo baxaya beelba in baa la shiraysa beelu waa ka soo gudubnay axsaab baynu noqonnay dan uma aha Ceelfeen waxa dib u dhigay waxa weeye Ceelfeen reernimada iyo beelaha inaynu axsaabta kaga baxno ayaa inugu talagalay beelaha iyo qabiileysiga intiinii soo baxday waxaan leeyahay waa inaad isu tagtaan mucaarad iyo maxaafidba oo aad Ceelfeen u tarisaan is eegtaan is qiimeysaan hadduu wadani ka soo baxay hadduu cid ka soo baxay iyo hadduu kulmiye ka soo baxay waa inaa idinku talada Ceelfeen maanta idinka ilaahay idin doortay oo nasiib u yeeshay waa inaa midida daabkeeda qabataan ee qabiil aan midida daabkeeda qaban halkan hambalyo uga diraya taageerayaashii muga iyo xoogga lahaa ee sida weyn ii taageerayay muddada kaambeeka garabtayna ii codeeyay waxaan leeyahay waa hambalyo waa haniyad jabina waadnu shaqayn doonaa insha Allah wuxuu noqon doonaa kuwa dadka iyo deegaankaba hadaynu soo bixin kuwa aan niyad jabin oo u shaqeeya dadka iyo deegaanka iyo idinka idin shaqeeya noqon doona hadda la iskin garab taaga